السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan jeclaystay idin wadaago dhowr arrimood oo isleeyahay dadkii way u baahan yihiin runtii waxna way ka bedelaysaa. qof kasto inaga naga mid ah wuxuu u baahan yahay sida caadiga ah inuu ku noolaado nolol qurux badan. nolol qurux badanna waynu helaynaa waynu ku noolan karnaa, laakiin waynu sameynaa dhowr arrimood oo ka horeeya nolosha aynu u baahannahay. kow muhiimku waxay tahay nolosha quruxda badan ee aad rabto horta adigu inaad tadbuuga qalin qaadato aad qorato. laba, aad raadiso cidda u saaxiibka ah ama aad ku tuhmayso. saddex, markii aad fahanto kadibna aad ficilkii samayso runtii waad helaysaa. inta nolosha ay doonayeen ku nool ee ku jirta ilaahay subxaana watacaala ha u siyaadiyo, intaan haysana allaha siiya leenahay aamiin. iyagana waxaan leeyahay halkii aad rabteen haddaad timaadeen ha isdhiibina ama ha istaagina, waayo haddii aad istaagtaan kuwii idiga dambeeyey ama shalay aan ku fikiraynin baa idin dhaafaya. marka waxay noqonaysaa sarreeyaba hoose, dabcan hooseyana sarre, waayo adigu waad ismahadisay halkii baad istaagtay kadibna de kuwii kale way ku yimaadeen way ku dhaafeen. waxa iska cadiya nolosha dadku inta badan xaalad badan bay ku sugan yihiin, khaasatan waxaa la hadlaya walaalaha qurbaha ku nool. waxaynu u baahannahay ama muhiima qofka bilaadamka horta kow inuu haysto caafimaad, oo waa sababta iyo muhiimka aynu u shaqaynayna aynu u dadaalayna waxa qofka inuu caafimaad fiican helo oo haysto. laba, waxay tahay qofka inuu haysto firfircooni oo dee qofka danihiisa ku qabsan karaya, waayo haddaad tahay qof caajis badan wahsi badan dareemaya runtii dee way adag tahay ujeedkii iyo wixii aad rabtayna ma helaysid mana gaaraysid. saddex, oo ah qofka inuu ku noolaado ama uu lahaado caafimaad fiican, firfircooni iyo muuqaal quruxsan. oo qofku wuxuu doonayaa inuu noqdo qof qurux badan, at least dharka uu xidhan yahay baa taqaana kusoo baxaya, dharku doonaya gadan karaya, dharku raba iibsan karaya. walaal waxaa jira maanta dharkay u baahan yihiin, laga yaaba dharku shaatiga uu gashto ama uu qaatay inuu s yahay, laakiin suurtagal maaha waqti xadarka inuu xidho oo wuxuu iibsanayaa l ama xl. okay, markuu nigtay gashto dee qoortiisii waxay noqonaysaa jaakad oo kale, gacan baa gelaysa, gacantii waxay noqonaysaa khamiis oo kale buu ka weyntay. sababtu waxay tahay xaalad jirta oo diidaysa, marka kuma qanacsana ka dhigantay. almuhiim maanta waxaan nahay tiim Soomaaliyeed oo runtii go'aansaday ku heshiiyey in ay noloshan meel gaadhaan, walaalahoodna caawiyaan. adduunyadan wax kasta oo soo kordha oo waxaweye dad gaara ogaada, dadkaas markay iyagu horta isu bedelaan, ay isbedel sameeyaan bay dadka kale ugu yeedhaan, ay u baaqaan si iyaguna isbedel u sameeyaan. maanta haddii aad shaqaysanayso ama aad tahay qof shaqaysta, waxaa laga yaabaa inaad dareemayso caajis badan. okay, seed uga bixi kartaa? dhakhtar baad tagtaa, dhakhtarka aad tagtaa xal kuma hayo, wuxuu kuu soo qorayaa un daawo. daawada dhakhtarku uu kuu soo qoraya waxay noqonaysaa wax noloshaada marka aad isticmaasho un daawo. marka noloshaada ma daawaad ku jiraysaa, waxay noqon kartaa qof aan si caadi aan u noolayn laakiin ku nool daawo ama kiin loo soo qoraya wax kaloo sameyn. kow. laba, waxaa laga yaabaa inaad caafimaadkii kalaba oo dhibaato kugu haysta. waad shaqaysataa, nolol fiican baad ku nooshay, laakiin caafimaadkaagaba halis ku jira ama khalkhal ku jira ama dhibaato badan kaa haysata. marka way adag tahay iyadana inaad noloshii aad rabtay aad ku nooshahay. waa lacag waad shaqaysatay, noloshu lacagta maaha, laakiin noloshu waxaa muhiima adiga shaqsiyan, qofkaa muhiima. waayo qofku kow waa mashiinka nolosha sameeya, laba waa mashiinka lacagta sameeya, waa mashiinka wax kasta samayn kara. haddii mashiinka khalkhal ku yimaado ama dhibaato ku timaado, way adag tahay in wixii uu baahan yahay uu sameeyo. maanta waxaanu maanta ku midownay walaalahan aan ku wada shaqeyna tiimkayga ballaaran inaanu caawino bulshadeeda. annagaa is caawinay kadibna dadkaygana caawinayna. sababta waxay tahay marka in qof kastoo bili-aadana wax uu hayo. waxaa marka adigu aad hayso, ma waxay haynta adigu aad haysa may macna ku samaynaysaa, mise marka wax kale loogu daro? maya, haynta waxaad haysa macna kuma samaynayso, laakiin marka wax kale loo geeyo waxay dhalaysaa wax qurux badan oo muuq wanaagsan leh oo dadkana anfacaya, runtii natiijo fiican ay ka soo baxayso. khaasatan tusaale ahaan oo kale dadka qurbaha ku nool xaalado badan bay ku nool yihiin maanta, oo dadka Soomaaliyeed aad moodid inay ragaadsadeen oo ka mid tahay waxaa la yidhahdaa xanuunaad moodid inay iskaba leeyihiin runtii, oo ka mid ah macaanka oo kale, dhiigkar, gaas, labdilaac, yani babaasiir, calool istaag, waxyaabaha tirada badan leh dhaxal umaynu helin. iskada dhaxal aanu helay dadkan ay la noolahay ay u nimid, waayo buugga qalin baa haysta wax bay naga qoraya. waxay dhahdeen dadka ajnabigii markay qurbahan imanayeen waxay dad caafimaadkooda aad u fiicnaa,
oo markii qurbaha yimaadeen dadka ay u yimaadeen bay ka caafimaad fiicnaayeen markii muddo joogeen 5-6 sano kadibna maxaa dhacay waxay noqotay sheekadu bilcagsi waxay tageen 100 bay kasoo degeen waxay ku soo noqdeen 20 tusaale ahaan okay sorry maxaa keena sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay de normally waxa weeyaan waxyaabo wax kaliya ma jira meesha laakiin waxyaabo isku biirbiray baa sabab noqday waxaana inaga inay waliba bulshadana Soomaaliyeed khaasatan ka markaana dadkayga anagu ka caawino qofkii dareemaya caajis badan daal badan wahsi badan sidoo uga bixi lahaa walaalo badan oo dareemaya oo ku noolaa baa guuleystay iyaga markaa de bugaagtii la qorayay la akhrisanay ee loo noqonay khibradda haysta iyagiiba ko laba walaalo badan waxa jiray yani subxaan allah yani fitamiinada oo isticmaala ama kinada la siiyo jirkooda u diiday ama dhibaato badan ku qabo maanta ka baxo iyagiiba say marba dhakhtar u tagay specialist ugu gudbinayay ay noqotay in iyaga dhakhtarba isku bedelaan yani waayanimada experience ka haystaan taasi waa xaaladda guud oo muhiimkana ah qofka bilaadanki nolosha waxaad macna ku sameynaysaa noloshahay noloshana waxaad uga sii macna sameyn badan tahay caafimaad haysato يعني waxay inaad caafimaad haystaan kadibna waxaad uga sii macna sameyn inaad tahay qof fikirayo oo meel u socdo de wax hiigsanaya oo hiigsan laakiin haddaan hiigsan lahayn oo ay adag tahay tan labaad walaalo badan waxaa jira ama dadkan nolosha caadiga ay ku jiraan ah inay yihiin shaqaale oo qof u shaqeeyaan oo maxaa la yiraahdaa waxaanu sameynaa 80% juhdi ah dadaal waqtiga iyo dadaalka aad gelisay abaalmarinteeda ma heshid waxaad heshaa 80% baad bixisay dadaal laakiin 20 natiijo aad heshaa inaan walaalkii u sameeyno ama tusino dariiq uu mari karo anaga wixii ma sameeyna laakiin waxaan haynaa taladii iyo wadadii qofku uu maray marka walaalkii markuu hadhow talo wixii arko uu ku qanco yani wax lagu leeyahay ka sameey maaha wax la isla eegayo wax hufan oo la sheelay markaas waxa ka soo baxay wax caalami oo qurux badan oo bataqana qof ahaan iyo shakhsi ahaan Soomaali ahaan iyo guud ahaan gaar ahaan bay naafacay noqonaysaa oo qofkii kula jixi doono ducayn doono dad kadibna teamku sax ka mid noqon doono isna walaalo badan si caawin doono waxa uu qalad waxaan sameeynaa marka inuu 20% juhdi uu sameeyo 80 kana faa'iidadiisa oo helo mesela dukaanada ama meelaha aan ka shaqeynaa shirkadaha ay u shaqeyno 80% waxa laga yaabaa subaxii inaad kala hado waxa laga yaabaa dadka qaarna salaada subax baa leeyahay kaalay ku tukada masaajidka ay garan baraan masaajidka sababtoo ah kulli shaqadan ku tukanaya lagama yeeli shaqadii ku tukanaya shaqadu waxa laga yaabaa inuu hatta waqti uu helo salaada subax ama salaadihii kalaba walaalkan daal badan iyo waqti badan buu bixiyay ma ilaahay xaqiiqa marka inuu lacagta ugu yarnayso ku qaato marka taasaan walaalka rabnaa walaalihii kale inaan ka saarno walaalo badan baa ka soo baxay maanta iyagu business iyo nolol iyagu gaar samaysanay haddaad dareynayso ama jeceshay inaad ka mid noqoto ku soo dhaweynaa si xushmad iyo xubad ay ku jirto waxaan walaalo ku nahay wax isku sheega wax kala qaadashada in wax fiican la isaga deedana waa muhiim walaalka noloshiisa isagu maareeyay uu mahadsan yahay ilaahay ha u barakeeyo maxaa la yiraahdaa waan u ducaynaa walaalka noloshiisa aan xal u hayn waxa laga yaabaa walaal garanaya wuxuu sameyn lahaa garanaya halku ka bilaabi lahaa laakiin aan sameynaynin walaalkaas kale markaa maxaan u sameynaa muxuu nooga baahan walaalkaas kale wuxuu u baahan yahay dhiirigelin mesela tusaale haddaan ku siiyo programka taleefankaaga ku jira si uu u shaqeeyo wuxuu ku leeyahay update ku samee macnaha waxaa laga wadaa update waa dhiirigelin oo sidii wixii shaqadii ay u sii wanaagsanaato dhiirigelin walaalkaas waxaan sameynaa dhiirigelin gacan qabad baan sameynaa waxaan tusnaa motivation baan u noqonaa yani waan garab istaagnaa waan wada soconnaa qofka markaa hadhow tale isagaaba naga horanaya waxtaa Soomaalidu laga badi muhiim marka wuxuu yahay mar rabo clipkan inuu iga bato 10 daqiiqo si guud haddii aad dareynayso inaad adigu hab caafimaad u noolaato adigoo caafimaadkaaga ka shaqeynaya quruxdaada ka shaqeynaya title-ka taagan tahay waxaad aaminsan tahay waxaad baratay iyo waxaad haysataa yani muhiimadu waxa ka muhiimsan oo inaad tahay qof caafimaad haysta laba inaad tahay adigu qof yani firfircooni dareemaya Soomaaliga tisdareera tukala ku dara ko yani si guud qof yani caafimaadkiisa ka shaqeynaya haddaad dareynayso ama aad wax ka rabto inaad ku ogaato nala soo xiriir inagu soo biro ku caawina laba haddii aad ku daashay shaqooyinkan qof loo shaqeynayo shaqaale loo noqonayo oo aad inaad ka hoos baxdo adigu aan yeelin boos ka sareeyo iyo boos ka hoose toona aad waqtiga rabtaad baxayso waqtiga rabta shaqada aad soo geliso qaabkaad u abuurin lahayd wadadaad martay walaalihii ka horeeyay wadada maray baan ku haynaa aynu kuugu yeerina hadda ogow guusha ama waxa aynu u baahanahay waxay sugayaan waa adiga waxaad adigu u baahan tahay adiga ku sugayaan marka adigu inaad sugaysaa waa nin lagu seexdo aad hasiixantiiso ma
marka way soo dhaweeyay waad ku mahadsantihiin walaalaha waxaan rajaynaya wax badan inaad ka fahmi doontaan bin ilaahi karim walaalaha noloshooda iyagu isku dayay ama in si xaliyaan ama dhibaato ka haysto soo dhaweeyna walaalihii bataqan noloshooda xalka gaarin waxa leenahay idinka laftiga nagu sabiira nolosha waxbaad haystaan anagana waxbaan haynaa wax loo geeyaa nolosha macna sameeyo iyo qurux soo saara muhiimadan waxay tahay in aad walaalaha kala sii wadaagto ama af ahaan uga sheegto ama clipkan iyo muuqaalada kale aad arki doonto u soo gudbiso waad ku mahadsantihiin in badan baad salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh